gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isaga guuray hoygii uu ka deganaa xarunta Villa Uganda oo ku dhex taalay madaxtooyada Soomaaliya wixii ka dambeeyay kadib cadaadis la sheegay in uu la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka guuritaankiisa oo waa barigiisa ka bilowday ayaa la sheegay in uu ka dambeeyay kadib markii xildhibaanada baarlamaanka ay gudbiyeen mooshinka ka dhanka madaxweynaha ay u suuragali weysay inay kula kulmaan madaxtooyada taas oo caqabad ku noqotay xildhibaanada gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa la xaqiijiyay inuu u guuray mid ka mid ah hoteelada ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin ammaanka hoteelka waxaa sugaya ciidamada midowga Afrika ee AMISOM qaarkood sida warbixinta aan ku helayno xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo mooshinka gudbiyay ayaa dalsan waxay u xaqiijiyeen guuritaanka gudoomiyaha baarlamaanka taas oo noqon karta mid sii kicisa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka laga gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya dhinaca kale afayeenka baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa soo saaray warqad uu ku sheegayo inaanu jabin mooshinkii laga keenay madaxweynaha isaga oo sheegay in la waafajin doono xeerka iyo dastuurka dalka u yaala hindisaha waxaa la sheegay in la waafajin doono sida uu qabo dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka baarlamaanka sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxday afayeenka baarlamaanka xiisadda ka dhalatay mooshinka laga gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa cirka isku shareertay wixii ka dambeeyay xildhibaanada baarlamaanka markii ay sheegeen in loo diiday in gudoomiyaha ay la kulmaan waxaa xiisaddan xalinteeda iminka ku biiray qaar ka mid ah siyaasiyiin hore xilal kala duwan kaga soo qabtay dalka Soomaaliya maxamed ciise maxamuud dalsan TV muqdisho